Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal soo dhowaada sheekada filimkeena ee maanta waxay qusaysaa maclimad u muuqato qof naxariis badan laakiinse dilaa dhigyacab ah waxayna dadka u dilaysaa qofka ay jeceshahay si ay u hesho ha isdhaafin muuqaalka sababtoo ah dhammaadka filimka ma qiyaasi kartid filimku wuxuu ku bilaabanayaa Jason oo duubaya muuqaal uu ku sheegay in waalidkiis ay isaga iyo walaashii dib ugu celinayaan iskuulka. Filimku wuxuu wareegayaa suuliyo ku yaala baar dhinaca wadada halkaas oo gabar ay soo xiratay dharka macallimiinta iyadoo la tusayo muuqaalka dhibanaha oo dharka laga siibayo. Waalidku waxay carruurta keenaan iskuulka halkaas oo Rebecca ugu timaado si ay u salaanto. Jason wuxuu ka xanaaqayaa waalidkiisa uuna iskaga tegayaa. Rebecca waxay u xaqiijinaysaa waalidka in carruurta halkan lagu daryeeli doono. Xafiiska Rebecca waxaa ku sugaya macallin Sofia oo hadda kasoo wareegtay iskuul kale. Rebecca waxay Sofia ka codsanaysaa inaysan marsan wax isqurxin ah maadaama ay halkan ka mamnuuc tahay. Waxay macallimada tusaysaa qaybaha dugsiga waxayna baraysaa Jason. Macallin Sofia ayaa ammaanaysa wiilka iyadoo ugu yeeraysa muusigaysta iyo xidig caan ah. Jason wuu iska socdaa laakiin Sofia ayaa gadaal u eegaysa. Markii Rebecca baxdo Sofia waxay furaysaa boorso magaceedu ku qoran yahay laakiin waxaa cad inuusan ahayn magaceeda rasmiga ah. Saaxiibadiis ay qolkooda degan yihiin ayaa weydiinaya haddii Jason uu leeyahay taageerayaal badan. Isna wuxuu ugu jawaabayaa inuu horey u lahaa dhowr kun. Sofia waxay qolkeeda ku daawanaysaa muuqaal Jason oo heesaya waxayna u dhowaanaysaa shaashada iyadoo dhukanaysa. Fasalka dhexdiisa Sarah ayaa u dhowaanaysa Jason. Sofia oo fasalka soo gashay ayaa arkaysa arrintaas. Waxay ka qaadaysaa lipstick waxayna u wareejinaysaa miiska ugu horeeya. Isla markaana Zoe oo ah Jason walaashii ayaa Sofia weydiisatay inay cashirka ku bilaabaan ducada subaxii. Markii Zoe ay ducada akhrinayso waxay dareemaysaa in Sofia aysan dad kale la akhrinayn. Cashirka kadib waxay u sheegaysaa walaalkeed. Subaxii Jason oo fasalka ku socda ayaa waxaa qabsanaysa Sarah oo bilaabaysa inay dhukato laakiin Sofia ayaa arkaysa. Macallin Sofia ayaa Jason u diraysa ciqaab laakiin Sarah waxay xusuusinaysaa in aabaheed uu yahay qofka iskuulka maalgeliya. Sofia danka ma laha waxayna Sarah uga digaysaa inaan mar dambe lagu arag Jason. Cashirka kadib macallin Sofia waxay Jason ugu yeeraysaa qolkeeda si ay ula hadasho. Inta uu soo socdo Sofia way isqaawanaysaa waxayna u reebaysaa albaabka si uu la kacayo isagoo furan. Jason markuu albaabka yimaado oo uu rabo inuu garaaco ayuu arkayaa Sofia oo qaawan. Way ogtahay inuu eegayo laakiin ugu dambeyntii Jason wuu iskaga tegayaa. Habeenkii Jason wuu seexan waayay sababtoo ah maskaxdiisa oo dhan waxaa ku jirtay macallin Sofia. Subaxii Jason iyo Zoe waalidkood ayaa yimaada si ay u kaxaystaan fasaxa dhammaadka isbuuca. Sarah ayaa u orota Jason oo hab siinaysa taasna Sofia ayaa arkaysay. Waxayna Sofia sameynaysaa marmarsiyo ay kaga codsanayso Rebecca inay dugsiga joogto fasaxa. Guriga Jason wuxuu markale la dagaalamayaa aabihiis sababtoo ah ma taageeraya hamigiisa muusiga. Sofia waxay yaari ku imaanaysaa guriga Jason waxayna maqlaysaa isagoo gitaarka u garaacaya barxadda dambe ee guriga. Way daawanaysaa laakiin Jason waxaa soo wacaya Sarah taas oo ka caraysiinaysa Sofia. Markaas iskuulka dib ugu laabanaysaa. Habeenkii Sofia waxay si dhuumasho leh ku galaysaa qolka Sarah waxayna buuggeeda ku dhex qarinaysaa sigaar. Markay qolka ka baxayso waxay la kulmaysaa Rebecca oo aragtay iyadoo dhismaha gabdhaha gelaysa. Sofia waxay sheegaysaa inay u marayso in qof dhismaha soo galay laakiin aysan cidna helin ilaa hadda. Zoe oo Sarah la degan qolka ayaa maqlaysa sheekadooda. Subaxii ducada kadib Sofia waxay amraysaa in buugaagta la furo waxayna Sarah buuggeeda ka helaysaa sigaar. Gabadhii dugsiga ayaa laga ereeyaa Rebecca ayaana Sofia u sheegaysa. Sofia waxay soo jeedinaysaa in dugsiga oo dhan la baaro. Qolka Jason waxay ka helayaan dhalo whisky ah oo ay Sofia horey ugu qarisay. Rebecca waxay ku adkaysanaysaa in waalidka loo sheego laakiin Sofia waxay ka codsanaysaa in fursad la siiyo si uu dugsiga u caawiyo. Xusuusuhu waxay muujinayaan in Sofia jeclaatay Jason ka hor intaysan halkan imaan waxayna iska dhigtay macallimad kale si ay ugu dhawaato. Zoe waxay go'aansatay in walaalkeed la joogto fasaxa si ay isha ugu hayso. Markay beerta ka shaqaynayaan waxay arkaysaa macallimada oo Jason shukaansanaysa. Habeenkii Sofia waxay si dhuumasho leh u galaysaa qolka Jason waxayna shidaysaa kaamirada taleefanka si ay u duubto sariirta. Sofia waxay bilaabaysaa inay isqaabiso Jason oo soo toosaya waxayna bilaabaysaa inay dhukato. Subaxii Sofia waxay Jason ka codsanaysaa inuusan cidna u sheegin. Inta uu Jason quraacanayo Sofia waxay gelaysaa qolkiisa waxayna qaadanaysaa dharkiisa iyadoo urinaysa. Zoe ayaa soo baxaysa. Sofia waxay dhigaysaa warqadda jawaabaha imtixaanka miiska laakiin Zoe oo fasalka soo gashay ayaa dareemaysa in Sofia daban u dhigayso. Sofia waxay ku eedeynaysaa Zoe khiyaano waxayna u kaxaysay Rebecca. Rebecca way ogtahay in Zoe ay tahay arday dadaal badan markaas ay qaabi weyday. Zoe waxay u sheegaysaa Rebecca in Sofia wax ka khaldan yihiin laakiin Rebecca uma aragto wax laga naxo. Jason wuxuu tegayaa qol gaar ah oo cidla ah laakiin Sofia ayaa gudaha ugu galaysa. Maamulaha oo shakhsiyan u yaqaan Sofiyadii saxda ahayd ayaa iskuulka yimid. Sofia ayaa maqlaysa isagoo Rebecca la hadlaya markaasay si aamusnaanaha ugu carartay. Waxay raacaysaa Jason oo tegaya xaflad ay Sarah leedahay. Halkaas Sarah ayaa hab siinaysa Jason laakiin Jason wuxuu xasuusanaya Sofia wuuna ka tegayaa Sarah. Isagoo jidka maraya askari boolis ayaa joojinaya Jason
sababtoo ah wuxuu sitaa dhalo khamri ah. Waxayna u kaxaysaa hotel si uusan aabihiis ugu arkin isagoo sakhraansan. Hotelka dhexdiisa Sofia waxay gashanaysaa dhar caadi ah, waxayna u sheegaysaa Jason inay tahay qof taajir, iyadoo u bandhigaysa inay Paris la aadaan. Jason wuu diidayaa, wuuna ka tegayaa. Jason aabihi ayaa kursiga beerta ka helaya, wuxuuna u sheegayaa inuu taageerayo oo uusan ku qasbi doonin wax uusan rabin. Subaxii xigay qoyska ayaa dalxiis u baxaya. Sofia oo gaari dhexdiisa ku jirtay ayaa soo toosaysa, waxayna u muuqataa inay gurigooda ilaalinaysay habeenka oo dhan. Zoe ayaa aragtay gaarigaas oo baxaya. Sarah ayaa dib loogu soo celiyay dugsigii kadib markii ay waalidkeed oo taajiriin ah ay cadaadis saareen iskoolka. Sofia waxay Jason ka codsanaysaa inuusan Sarah la hadlin, isna wuxuu u sheegayaa inaysan amar siin. Habeenkii Sofia waxay u dhuumanaysaa dhismaha gabdhaha, waxayna Sarah ku dhex dilaysaa suuliga, iyadoo u ekaysiinaysa geerideeda shil dhacay. Cashada xasuusta Sarah, Jason wuxuu weydiinayaa Sofia inay lug ku leedahay geerida Sarah. Sofia waxay ugu jawaabaysaa inuu isagu yahay dambiilaha, waxayna tusaysaa muuqaaladii ay ka duubtay. Jason wuxuu ka codsanayaa inay tirto muuqaalka, laakiin Sofia dan kama laha, waxayna kaliya rabtaa inay Jason raacdo. Sofia waxay Rebecca u sheegaysaa been ah inay ka qayb galayso aaska eedadeeda oo dhimatay si ay fasax u hesho. Qoyska Jason oo maqaayad ku qadeynaya ayaa Sofia ugu timaada, waxayna la fadhiisataa miis kale. Laakiin markii dambe waxay u timaadaa aabaha Jason iyadoo iska dhigaysa qof kaligeed ah oo aas ka timid. Aabaha ayaa ku martiqaaday inay miiska la fadhiisato. Markii la weydiiyay halka ay ka timid, waxay tiri Missoula, Montana. Zoe waxay dareemaysaa wax aan sax ahayn, sababtoo ah waxay hore u soo baartay macluumaadka Sofiyada rasmiga ah. Halkaas waxaa ku qornayd magaalo 500 oo kiiloomitir u jirta. Guriga dhexdiisa Zoe waxay Jason weydiisaa waxa jira. Jason wuxuu u sheegayaa wax kasta iyo sida ay Sofia ugu hanjabayso muuqaalka. Jason iyo Zoe waxay go'aansadeen inay u dhacaan qolka Sofia si ay caddayn u raadiyaan. Isla markaasna Rebecca waxay ogaatay in isbitaalka ay Sofia sheegtay aysan jirin qof ku dhintay. Markii Sofia la hadlaysay, Sofia ayaa Rebecca madaxa kaga dhufatay laambada miiska. Jason iyo Zoe waxay qolka Sofia ka helayaan laptop ay ku jiraan boqolaal sawir oo Jason ah iyo magaceeda rasmiga ah ee Sofia. Waxayna u ordayaan xafiiska, laakiin waa xiran yahay. Kadibna kaniisadda ayay u cararayaan, halkaasna Sofia ayaa kaga hor imaanaysa albaabka. Jason ayaa tusay laptopka isagoo u sheegay inay wax walba ogaadeen. Sofia ayaa Zoe dhulka ku tuuraysa. Jason ayaa isku dayay inuu ceejiyo Sofia, laakiin Sofia ayaa dhulka dhigaysa. Waxayna rabtaa inay Zoe disho, laakiin Rebecca ayaa ka soo gaaraysa. Jason ayaa soo saaray muraayad uu jeebka ku sitay, wuxuuna kaga mudayaa Sofia dhabar. Sofiana waxay ku dhimanaysaa halkaas. Dhammaadka filimka, Jason iyo Zoe waxay ka qalin jebinayaan dugsiga sare. Aabaha wuxuu gabadhiisa siiyay gaari, Jasonna wuxuu helayaa gitaar aad u qurux badan. Filimkuna xaggaas ayuu ku dhamaanayaa. Fadlan ku soo biir channelkeena si aad u hesho muuqaalo noocan oo kale ah. Waana ku mahadsantihiin daawashadiina.